السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا وإذن سلامي maanta saa u jeedaan waxaa garabkayga ka muuqda maxamed qadar maxamuud sahal muxuu ahaa ninka wuxuu dhahay maxamed qadar maxamuud sahal waxaan kugu meheriyey ninka wuxuu dhahay sahal buu yiri maxamed qadar maxamuud sahal waxaa kugu meheriyey aamina maxamed sheekh muu dhahay mise meel qosolaha ka bilowday sheekada marka horta kowdii waxaa rabaa inaan u hambaliyeeyo hambalya waa horeysay laakiin mid dadka dhan ay la ogyihiin inaan ku dhaho horta hambalyo wiil iyo caano gabar iyo caano ya labadaba caano miya gabar iyo dollar gabarta dollara say ku noqotay dollar waa iyadoo iska lacageeda dhan baa lacagaysanay okay maxamed khadar baa maanta la joogo oo marti ila anaa la joogo asaga marti u ah oo maanta ku soo booqday gurigiisa oon khalday meeshas yaana laga qaban marka maxamed khadar maanta waan soo booqday maasha Allah waa u jeedaan uu nuuray hadda maxaa la dhihi jiray waa ka muuqataa xoogoo maasha Allah hana maxaa la dhihi jiray aadna ha usii fiirinina ha eegana ana bas soo eega marka maxaa la dhihi jiray maanta inaan wareysi yar la yeeshaan rabaa xoogoo yar oo maaragtay yara qaraaxa ah saasna inaan u dheereeyo ma rabo marka insha Allah kowdii horta maxamed qadar waxaan ka baryayaa ama aan ka codsanayaa inuu noo sheego waayo maxamed qadar waayo waayo su'aalo la isweydiiyo la isku ogaay codsi iyo baryo la isku ogeyn maxamed qadar waayo markaa leedahay waxaan u gartay waa kuma waa qof ma marka hore horta waa kuma waa aniga markii xigto magacayga waa oo dhameystiran oo saddexan ninkaan hore u sheegay maxamed qadar maxamuud sahal midda xigtana waxa weeye aniga waxaan ku dhashay Soomaaliya halkaasaan ku soo barbaaray waxbarashadeeda ku soo qaatay oo saddex sare kadib waxa u soo wareegay halkan dalkan Kenya muddo sanado waan joogaa halkan hadda waan deganahay halku waa isku aadan ما شاء الله ما شاء الله qadar ما شاء الله wadankeena hooyo dhulkeena hooyo meel lagu dhashay meesha ugu wanaagsaneed aad ku dhalatay ما شاء الله maxaa la dhihi jiray waxaan rajaynaynaa in aniga asagaba meeshan ku dhashay Soomaaliya ku dhashay daadan ogeen waxaan rajaynaynaa in meeshan lagu duugo hadii aad waaba codsanaynaaba laakiin ma dhowyaana la duugo waxaa la dhihi jiray maxamed qadar midda labaad waqtigan inaan sii dheeray mar rabi maxamed qadar arinta ugu yaabka badneed oo ku qabsatay maxay ahayd inta aan noolayd yaraankay ilaa i weynaanta arinta ugu yaabka badneed oo ka yaabiso aad aragto ama ku qabsato adiga nafsada wallahi niyo su'aashaas kaliis baa iga dhigtay hadii wixii waa la iska hilmaamayaa oo waxa waa yaraantaada wixii ku soo marayna waa hilmaamaysaa inta weyn tahayna sidoo kale waxaan xasuusto oo aan aad u laacjabo oo arko oo hadda aan garanayo niyadeeda ku jiraan ma jiraan laakiin yaraantayda cunuga markuu yar yahay waxyaabo badan way soo marayaan oo maaragtay wixii shalay uu sameeyay maanta la khaldanaanayo isleeyahay shalay alle ilaahay waxaas inaa sameeyay ma ahayn ama sanada ka hor waxaas inaa sameeyay ma ahayn laakiin alxamdulillah hadda waxaan aad u laacjabo dad uga sheekeeyay ma soo arkin okay taa waa arinta ugu yaabka badneed oo waa ka cudur daarto waxaa tiri ma xasuustay kadisaan iga dhigtay waan ku dayn maxay ahayd arinta ugu qosolka badneed oo aad la kulanto aad aragtid ونما سؤالها dabka maanta waxa kale oo la sii diyaarsan hore la isku sheegay inay hoosta isu gelisay waxa way adiga wariyaasha camal uma dhaqanayna anaga wariyaal man yimid wariyaasha wax dadka wax isku sheego anaga waa isku xadnaa okay ogahay inaad ku dhaceynay maxaa la jiray waxaan ogahay inuusan hoos mareynin oo maartay ku adkaanayna sababta ninka waa nin maartay media uu ka soo shaqeyn jiray waa nin dhan oo saxafi ah ninka saan noqonay way dhamaatay way dhamaatay magaayeenay waxa la knowledge once past always a knowledge wiliga ma qashin ingiriiskaas ma qashin
macnaha wixii hal mar soo maro wix maya aqoon mar un aad soo samaysay oo maarta wax mar soo soo maro waxay noqdaan baadi skills waxay noqoto weli waa cilmiga as your skills please encouraging version ee marka wuxuu ugu qosolka badnaa noo sheegtaa ma hilmaamine taas oo geesniyo taas ka wareejimay qosol caadi meel khatar ay galaysaa ka taas iga taariikh marani adiga jeegan wuu diiday laakiin idinka iga soo garbaxaya ani asagoo iga garbaxi waay su'aalaha kale noo gudbi okay maxamed qadarow hamigaaga maxaad rajaynaysaa inaad noqotid mustaqbalka insha Allah doonayna waa ka soo boodi meelaha su'aalaha adag kuwan yar yar ah oo maana ma sha Allah maxaan mid kale oo ku raacinayo hal way channelka YouTube channelka hami nooca kale leedahay maxamed qadar dadkii way ku kasayaan horta way ku yaqaanaan hala soo booqdo laakiin waxaan weydiinay YouTube channelkiisa hamiga uu ka leeyahay kadib markuu noo sheego hamiga uu ka leeyahay waa u yaacaysaan xaqiisa aadaysan nin horta su'aasha horaan ka hormaraya ahi mustaqbalka maxaa rabtaa inaad noqotid mustaqbalku waa labo mid dhow iyo mid fog mustaqbalka dhow de waxaan jeclaa inaan noqdo nin maaragtay bulshada dhexdeeda magac mansab ku dhexle waxaa la yidhi dee nin hanti la'aan dhargaa jiraa la yidhi iyo nin hub la'aan diriiro iyo nin hoy la'aan seexda marka nin hanti la'aan dhargo inaan noqdo oo nin mansab leh oo magac bulshada ku dhexle inaan noqdo aan rajeynaya mustaqbalka dhow insha Allah mustaqbalka fogna waxaan rabaa inaan noqdo shaqadeeda ama maaragtay xirfadeeda inaan noqdo aan jeclahay pilot مدولية. marka YouTube channel kadaan soo gudbo YouTube channel kaniyo in iska xirfado badan baa xirfadeeda hadii ugu dambeeyay gacanta aan ku haya isaga ah marka waxaan rabaa mustaqbalka inaan asagana heerka aan doonayo dabaqada iyo salaanka aan u fuulo inuu noqdo meel sare aan ku gaaraan rajeynaya asaga naftirkiisa uu ii noqdo maaragtay buddhig ama biyo dhig hadbaki awsha ما شاء الله مغليسان أصحابك بدقس بيدقس سفعنا هو يعني هو قوي زم